ciidamada BNPF oo ku guda jira gudashada waajibaadkooda amniga ka saaran dalkooda iyo dadkooda ayaa maanta howlgal lagu xaqiijinayo amniga lagana hortagayo kooxaha firxadka ah ee ka fuliyay deegaano hoos yimaada degmada Hufeyn ee gobolka Bari. ciidamadu inta ay ku guda jireen howlgalka lagu ciribtirayo argagixisada waxa ay gaareen deegaanada Xabley, Tuulamarood, Noqor, Dawacale, Togaga Xarawe iyo Igdays oo dhamaantood hoostaga degmada Hufeyn ee gobolka Bari. waxaana ay kulamo ujeedkoodu ahaa buddhiga iyo kawada shaqaynta xasiloonida iyo nabadda la qaateen waxgaradka dhalinyarada iyo labeenta deegaanada ay ciidamadu ka howlgaleen. gulufyada ka dhanka ah kooxaha khawaarijta ee ciidamada BNPF muddooyinka u dambeeyay ay laba jibaareen waxa ay ka gaareen natiijo wanaagsan iyagoo ku qabtay naftood haligayaal ka tirsan kooxahaasi walxaha laga sameeyay qaraxyada hubka noocyadiisa kala duwan iyo shakhsiyaad gacan saar leh argagixisada. cutubiyada bariga ee saldhigyada guurguura ee ciidamada BNPF waxay markasta u taagan yihiin difaaca dalkooda iyo dadkooda waxay u diiran yihiin inay si nafurliman ah uga howlgalaan buur iyo bannaan iyagoo hadafkoodu yahay sugidda amniga guud ahaan deegaanada Puntland si shacabkoodu ugu noolaadaan nabad ugu ganacsadaan warwar la'aan uguna safraan xasilooni iyo nabadgelyo.